oo Soomaaliland ku soo socota ayna ka digayna baa jirta waxaanana u dugaynaa jamhuuriyaddan barakaysan ee Soomaaliland haddaba nimankan aad arkaysaan kana waa ninkii kilinka shanaad ee aad ogtihiin inuu Soomaaliland cadow ku yahay kana waa ninkii haystay kilinka Oromada haddaba waxaan leeyahay jamhuuriyadda Soomaaliland arrimahan soo socda waa in ay dardar gelisaa sida ay ugu hortagi lahayd haddaba shirba ka dhacay Addis Ababa 11 ilaa 12 bisha 11aad shirkaas niman Somaliland haraba inay qalaaqal iyo arbush ay ku sameeyaan ee reer awdal ah baana halka ku shiraya kanana yimid dibadaha aynu ognahay qaarkoodna inay ka soo baxeen gobolkii awdal haddaba shirkaas ha qabsadaanay waa dad Somaliland deesar ah laakiin si cuffi ku jira iyo nacayb ha qabsadaan muxuma laakiin waxa qatarta leh waxa weeye ee aan kaga digaynaa kilinka Oromada madax ka socota ka soo qayb galaysa oo waxa ka soo qayb galaya madaxda kilinka shanaad taas aynu ognahay waxyaalaha ka soo baxaya inay tahay meesha la yiraahdo ama degmada la yiraahdo Baabili nimanka maxay state-ka isku sheega rabana Somaliland qayb kamid ah qaasatan galbeedka Somaliland oo duulaan ay ku yihiin in saldhiga laga siiyo meesha la yiraahdo degmada Baabili kana tirsan kilinka Oromada laakiin waxa la yaab leh dadka waxa ku fikiray qorshaha keenay horta waa dad Somaliland deesar ah laakiin waxa ayaan daran ah annagu ma nihi Oromo Ethiopiana ma nihi ee waxaynu nahay dad Somaliland deesar ah waxaan kaga digaynaa shirka 12 ilaa 11 ka dhacaya bisha soo socota Addis Ababa Somaliland waa inay ka hortagtaa qaasatan safiirka loo magacaabay shalay ee madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi Xildiid oo u magacaabo inuu arrinkaa ka howlgalaa sida la socotaan cagjar iyo maamulkiisu way ka qayb galayaan sidoo ugu fudeediyo dhaxmarka ay soo dhaxmarayaan kilinka shanaad maadaama Baabili ay ka tirsan tahay kilinka Oromada haddaba Somaliland waxaa leeyahay anigoo ixtiraamaya xukuumadda iyo madaxda sare waa la socotaan cagjar inuu yahay cadowga jamhuuriyadda Somaliland waad ogtiin bariga gobolka Sool wixii ka taagan ama waxa ka taagan halka laga soo abaabulay inay tahay shirkii ka dhacay kilinka shanaad 9 bilood ka hor ilaa 10 bilood waa waxa ka taagan bariga Sool waxa u sabab ahaa shirka ee ka dhacay Jigjiga iyo agagaarkeeda maantana ka daro dibi dhalal Addis Ababa shirkan ka dhacaya ee reer awdal ay ku casuumeen kilinka Oromada madaxda ka socota iyo kilinka shanaad